kulanti waan daawada waxaan rajeynaa inaa fiican tahay insha allah intaa kadib mawduucan wuxuu gaar u yahay dadka ka sheegta ama problem ka soo gaaray dhaawac ka soo gaaray ama xanuun ka soo maray qof ay jeclaayeen oo ka tegay marka haddaa tahay qof dhaawacmay oo niyad jabay oo xiriir muddo dheer uu ku jiray ka go'ay haddaa tahay gabar ninkeedii ka tagay haddaa tahay nin gabadhii uu qabay uu jeclaa ka tagtay haddii ilaahay kuu sama diidan iyo wixii la mid a maanta mawduucaasaan ka hadlaynaa insha allah break ups alda afka Ingiriiska xiriir inuu go'o maxaa keen horta sababta maxay tahay su'aal way moogtahay waxaa laga yaabaa inaad ku jawaabto inay keentay inuu ku khiyaanay ama ay ku khiyaantay waxaa laga yaabaa inuu waa iga danaystay marka aan ku daalay oon ku dhibtooday oo aan waqti badan geliyay kadib uu isbedelay ama ay isbedeshay inta badan waa maqalnaa laakiin haddaan ku dhaha ka waran xaqiiqda dhabta ah ee xiriirda u go'an sidaas ma wax ka duwan ayaa jira oo aanan inta badan annaga haddaan bini aadan aanan ku markaas ku baraarugsanan baa jira marka si aan mawduucan kaga qabtiro waxaan soo qaadan doonaa 3 caddayn oo 3 fildi oo kala duwan ka keeni doono hadday tahay physics-ka hadday tahay psychology-ga iyo haddii ilaahay kuu sama diidana hadday tahay falsafada 3daas cilmi ayaan insha allahu tacaala daliilka ay keeni doonaa tan koowaad physics-ka wuxuu leeyahay xeer la dhaho entropy la dhaho entropy wuxuu qeexaa laba shay kasta oo isku lamaana ama wada socday adeer mataqaana aadaan ama hawada socdaanay ama haddii hal dhinac hal jiha ay u soo wada socon waayaan way kala haraan waxaa la mid ah haddii si kala duwan ay u barbaaraan muxuu ahaay usulog si kala duwan ay u kala koraanna oo mid weynaada midna yaraadana way kala haraan taasoo macnaheedu tahay qofka aa xiriir kala leedahay haddii aqoon ahaan iyo garaad ahaan iyo faham ahaan noloshiisa haddii isbedesho ama dhaqaale ahaan ama deegaan ahaan haddii isbedesho waxaa suuragala waaqac uu ku nool inay isbedesho sidaa daraaddeedna adiga marka haddaadan update iska dhigin oo jihada uu u socdo qofkaas aadan u soconinna ay khatar tahay markaas inaadba ishelili weysaan sidoo kale cilmi kale oo la yiraahdo baa jira markaasi haddaan soo qaadano marka la jooga falsafada waxaa jirta waxa la dhaho developmental mismatch saas aan saas u dhahay developmental mismatch waxaa laga wadaa qofka haddii garaadkiisa iyo fahamkiisa iyo siduu uu horumarayo ama hore uga soconayo haddii ka duwan tahay qofka kale oo xiriir kala lahaa ama jeclaa ama ay isjeclaayaan waxaa lumaya connectionkooda maxaa yeelay waaqaca iyo jihaad hataa sida hore kuu soo sheegay isbedesho waqtigiisa isbedelo marka lama dhaho loss lama dhaho Englishka qofka marka weysid waa loss waa lose garay waa loss waa iga lumis lama dhaho loss lama dhaho alignment yaa la dhaho Englishka because meesha uu jiheynayo iyo siduu u socdo ayaa insha Allah tacaala kala bedelaan doona adiga isaga marka maxaa laga rabaa qof walba qofka aad xiriirka la hadaa aragto inuu horumar sameynayo ama uu isbedel sameynayo adiga waa in fahamkaaga u kordho waa in aqoontaada kordho waa in xirfadahaaga bataan si aad u mismatchingka kugu dhici doono aa uga baxdo waa inaad waaqiciisa ku noolaato waa inaad baddiisa soo gasho haddii kale waxaa dhici doonto qofka inaad weyso ama aadba ishaleeli weysaan isagoo aan si ku talagala kuu samayn sidoo kale cilmiga falsafada ayaa wuxuu dhahaa identity is a moving target qofka macnaha aqoonsigiisa ama identitygiisa wuu isbedelaa moving target wuu socdaa inaa maqasheen gal maqaan hadaan kula kaftamo xashiqa wuxuu yiri kan shalay iyo maanta ma yihi macnaha isku mid ma yihi arrintaas markii la fiiriyo cilmiga falsafada waa run qofka shalay qofka uu ahay ma aha maanta wuu isbedelaa aqliga kordhaaya cilmiga kordhaaya da'ba kordhaysa haddii la ku sameeyay marka da'da haddii inay ku kordho waxa la yiri moogtahay ninkii gabayga ma hayo wuxuu yiri haddii wuxuu ahay guu ku kordhaa waxa la yiri uusan waxba kugu soo korin macnaha moogtahay dhibaato ay leedahay marka mar walba oo qofku uu koro garaad ahaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan faham ahaan qofku wuu isbedelayaa marka waxaa laga rabaa adigana si aad mismatch kugu dhicin waa inaad qofka jihada ugu socdaadana waa inaad u socotaa haddii kale cilmiga muxuu ahaa physics-ka iyo dhammaan falsafada iyo psychology-ga waxay sheegaan waa khilaafaysaa ma fahantay moving target maadaama identity-ga uu yahay adna waa inaad jihaysaa haddii ilaahay ku sameeyay noloshaada iyo dhinaca aad u socoto adna waa inaad jihaysaa haddii kale hadee waa lagu wareerayaa kadibna waa laga soconayaa Soomaa marka su'aashu waxay ka taagan tahay marka sidee loo gartaa marka qofkan markuu xiriirkiina dhow yahay inuu burburo sidee loo gartaa tan koobaad qofka xiriirkiina markuu go'an number 1 maadaama aan ka soo hadalnay uu isbedel dhacay entropy-ga hadaan ku laabano kale markaad kala leexanaysaan qofka si tartiib ah baad kala leexataa hal talaabo laba talaabo saddex talaabo shan talaabo iyo wixii la mid ah kadib baad 1 kilomitir kala fogaataan taasoo kale qofka markuu fogaanayo waxaa lagu gartaa tan koowaad waxaa go'aya connectionkiina qofka xiriirkiina yaraanaya wada hadalkiina yaraanaya isfahamka sheekooyinkiina yaraanaya qofka markaas waaqac uu ku nool yahay waaqaca kala duwan waa isku wareereysaan macnaha waa isku dhacaysaan
dadku markay xiriirkooda gowr waxa lagu yaqaanaa way iskhilaafaan way isdagaalaan way isku dhacaan because fahamkooda kala duwan sidii qofkan uu arko waxan iyo qofkaas kale soo arka kala duwan qofka marka waa iskhilaafi doontiin waa isku dhici doontiin dad badan baa laga yaabaa inay aaminsan yihiin jacaylka khilaafka iyo guurka familka marka la yahay khilaafka caadi waay ma aha arrintaas wax ka jira ma lahabeen waa khilaafada yaryar ee wax isku haysan qofka ha laakiin markii khilaaf weyn oo aadan ka soo kabsan karin in soo dhaxgala waa mid ku burbur lahaydaan laakiin marka isku haysano muxuu ahaa lambar 6 waa lambar 9 waa wax weyn maaha marka dhinacaas lambarna waa isfahmi doonaa haddii lambar dhexdan lagu qoro 6 dhanka dalaga 6 iyo dhanka dalaga 9 uu yahay taas oo kale ayaa la dhahaa khilaafaadka yaryar hadaa isku haysan dhaqaale yaryar hadaa isku haysan hadii ilaahay ku dimadina muxuu hinaasaha gabdhaha inta badan ka yimaado hinaasahaas wax weyn xiriirku ma dhimo waxaas oo kale hadii la xiriiraan ha laakiin markay wax weyn la xiriiraan oo aan isku fahmin oo maanta asu imaadaan oo dooda ku heshiin waysaan oo biri ku heshiin waysaan xiriirkiina ma gooyaa marka waxaa lagu gartaa marka xiriirka number 1 waxaa lagu gartaa xiriirka markuu gooyo waxaa lagu gartaa in qofku markaas aadan shaqo isku lahaan oo connectionkiina gooyo maxaa yeelay friction ayaa dilaac ayaa ku yimid xiriirkeena dilaacaas marka wuxuu sababayaa maanta waa waxa laga yaabaa 1 senti inuu yahay beri wuxuu noqonayaa 2 senti 5 senti 10 senti ilaa marka dambe taako isku bedelo iyo hadii ay ku sameeyeen dhaqdhaqaaq waaweyn ee dilaac weyn oo sameeyo marka qofka marka hadii marka aqoon ahaan iyo maadaama uu ka duwan yahay faham ahaan iyo sida uu wax u arka maadaama ay kala duwan tahay connection uu go'ay qofkaas khalaas intuu jooga marka su'aal waa marka qof intuu aaday macna qof kula jooga marka qaar guriga ku galno laakiin adduunyadiina kala duwan identity-giisa isbedelay su'aalaha waxa laga yaabaa inaad ku yeed lambar 2 inuu ahaa maanta 5 waa macna lambar 2 ayaad u malaysaa markaas waxa inta badan gabdhaha ay ku dhacda arrintaas guurka waxay ka fishaan wax waad weyn markii la guursanaayo waxay fishaan romantic iyo musalsalada iyo daraamooyinku arkaan waxay fishaan wax saas markii la sheekeysanayo ninkan sida uu markaas u ahaa ma aha sidaas marka waxa ku dhaco marka qalbi jab markii ay u yimaadaan ninkii ay guursadeen ay jeclaadeen ay intaas oo ereya macaana la ahay markay u yimaadaan inta badan waxa ku dhaco marka wixii ay filayeen wax ka duwan ayaa soo baxa qalbi jab baa ku dhaca markaas waxa ka maqlaysa inta badan gabdhaha wax ka maqasha wajiga uu bedeshay sidii uu ahaa ma aha no way ma asaas isbedelka waqtiga waaqaca future-ka uu ku noolyahay ninkan ayaa ka duwan mustaqbalka uu raadinayo bay'adda hadda uu ku noolyahay deegaan ahaan hadduu guriga xataa ku noolyahay network shabakadiina frequency-ga mawjada raadigaaga ay ku soo qaban lahayd qofkaas ayaa ka baxay wuu fogaaday laakiin adiga waxa moodaa inuu kula markaas kula joogo ma inta badan lagama xiriiro wada jirka isla jooga lagu wada xiriira waxa lagu wada xiriira connection qofka xiriirka idinka dhaxeeyo oo isla hadashaan ayaa xiriir waxa laga yaabaa qof guriga ku nool oo sarri wada saxanaysan inuu xiriirkiina mar rogo laakiin adiga aadan ku birrugsanin sidoo kale qof ka fog oo waxa jira meel fog ku nool oo haddana xiriirkiina uu fiican yahay niyad ahaan iyo qalbi ahaan isku dareen aad tihiin laga yaabaa mararka qaar marka aad wacayso ina adiga way cirab asagan oo ku dhaw haddan ku soo cirabay arrintaas maxay cadeynaysaa qofkaas connectionkiina uu fiican yahay asaga uu ka fog ayuu qalbiyan kula midaysan yahay ama midkan kula jooga hadii ilaahay ku sameeyay ma kula midaysan maxay future-kaaga waa ka duwan yahay frequency-ga oo kala hadli lahaa wuu ka baxay hadii ilaahay ku sameeyay identity-giisa wuu isbedelay animo ma bal hadli kartid ba wax xiriir idinka ma dhaxayaan sidaas oo xiriirada ay ku go'an marka insha Allah taala idinku dheeraa lahaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh